kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiinba daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan oo meel kasta oo dunida ka joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka gaar ah oo waqtigeenu ugu soo fool leh haddii loo birhali ka noqdo aan diiradda ku saari doono habsami u socodka nidaamka waxbarashada ee dugsiga sare ee degmada Awbarhe iyo sidoo kale qaar ka mid ah baahiyaha dhanka waxbarashada ee ka jira isla dugsiga isla markaasina uu nala soo wadaaga muuqaalka dugsiga cameraman amase muuqaal duube Xuseen. dugsiga sare ee degmada Awbarhe ayaa guud ahaanba waxaa wax ka barta ardayda ku nool degmada oo tir ahaan aad u badan inkasta oo dugsigu adeegyada muhiimka waxbarashada ay qaarkood ka maqan yihiin haddana asaaskii dugsiga boqolkiiba 80 shacabka degmada ayaa si iska wax u qabsaa ku dhistay sida uu sheegayo mid ka mid ah odayaasha degmada geesta kalena ka mid ah guddiga dugsiga. waan dhawahay magacayga waxaa la yiraahdaa Ismaan Nuur Taani kulli waxaan odayaasha magaalada Awbarhe magaalada waxa ka mid ah kana mid ah guddida BTA-ga iskuulkani dadweynaha ayaa boqolkiiba 80 degta ku dhistay oo aad iyo aad degta ku dhistay iskuulkan dawladdu waxay ka qaadatay iyada lafteedu manhajka waxbarasho ay keentay macallimiintu ay mushaarka u qortay iyo aqoonsiga dugsiga kulli dawladda ayaa iska lahayd wixii qalabana dawladda ayaa keentay annaguna waxaan ku dhisanay degta way soo kordho hay'adaha kulli kolkii qaxootigu soo degay haare iyo UN iyaguna waxba ku beerbeeliyeen iskuulkan saasoo ku kacamay maanta waa iskuul jira dayrkan iskuulkaas ku aragteen waxaan oo dhistay ciidamadii Mareykanka ee soo degay muxuu ahaa magaalada Jigjiga ayaa iyaguna qayb ka qaatay oo intoy markii hore yidhaahan galaasyadaan beerna la dhimaahay iskuulkan oo dhisa si uu yeesho control iskuulku waa hawshiisu ilaa ay magaalada salaam shakhsiga ardayda 13 sano ka ah BTA guddida ku jiray imigana waa guddi iskuul shaqeeya oo iskuuliyada dawlad deegaanka Soomaalidu ku soo hirto kamida maamulaha dugsiga sare ee degmada mudane Daawud Cabdi Ciise oo hoggaanka ugu sareeya dugsiga muddo kooban jooga ayaa ka waramaya taariikhda iyo marxaladii kala duwan oo soo maray dugsigu. waxaan dugsiga ku magacaabanahay in muddo 2 bilood dugsiga maamulayaal badan buu soo maray marxalad ka duwan baa soo maray arday kala duwan baa soo martay dugsiga markii aan nimidnay lagu soo qoray waxaan baarnay xogtii dugsigan soo baarnay 1993 arday dhigaysay ilaa 2013 baan duwan gelinay annagu xogii dugsiga iyo dadkii macallimiinta hore ka baarana waxaan noo qabsoomay inaan ogaano intaas oo 22 sano ardaydii ka baxday inaan helno iyagoo lab iyo dhadiga tiina ilaahay fadligiisa uu noo soo tooday xogtii dugsiga noo dhameystiran tahay ardayda dugsiga soo martay. qaar ka mid ah ardayda dugsiga oo isku jira wiilal iyo gabdho ayaa dhankooda ka waramaya habsami u socodka nidaamka waxbarashada ee dugsiga. waa Maxamed Cali oo ka socota class 12 natural waayahan dambe waxbarashadu aad bay noogu fiican tahay maxaan ku isbedel dhacay daraadeed marka maxaan ku raadayay si fiican ayaan u dhiganaa macallimiinta weyn wada helnaa sidoo kale waxaan leenahay qol ICT oo lagu baro computerka awalkii hore taasi fursad ma aanu heli jirin laakiin wuu dhasaysteen xitaa laakiin ay gool hagaajiyay waana dhiganaa oo waana la baraa sida kale waxbarashada aad magacaygu oo Sadex Cabdixakiin Gulal Cali oo dhigta natural koytomnaad isbeddelka horta iskuulka ka dhacay aad ayuu u wanaagsan yahay marka koobaad markii hore IT-ga ma gali jirin hadda xataa IT-ga waanu galnaa maadooyinkana 6 xiiso macallimiinta qaar markay xanuunsanayaan si maadaama library-ga una jirin IT-ga ayaanu ku qaadanaa wixii practical markay macallimiintu 6 xiiso joogan si xaadir ayaanu u qaadanaa maadooyinka ardayda markay imaanayaan 7 iyo 40 wixii ka dambeeyay xiisada koobaad 8 oo buraa markay bilaabmato
albaabka lagu xiraa ilaa xiisada koobaad ay dhacayso marka xiisada koobaad wixii ka dambeeya ayay soo galaan laakiin xiisada koobaad baa la xaadiriyaa ardayda intii banjwale xaadira wixii marka dambe kadib xilbriga kadibna la xaadiriyaa baahida ugu weyn ee waqtigan ay ka jirto dugsiga ardayduna u baahan yihiin inay ka caawiyaan xukuumadda qurba joogta iyo shacabkuba ayaa waxaa ka mid ah maktabadda buugta lagu akhrista amase laabareeriga oo hore u lahaan jiray dugsigu balse dad aan la aqoonsan muuqooga waqti dambe oo habeennimo ah ay dabaqabasiiyeen ha yeeshee muddo ku dhow 2 sano aan helin dayactir dhammaystiran laakiin waxaa fiican lahayd inaan helno library maadaama uu gubtay library-gayga hore meel wax ku akhrisano ama aan aqoon dheeraad ka raadsano ama xiisadaha firaaqada aan iska tagno waan u baahanahay marka sidoo kale waxaan jeclaan lahayn inaan helno laboratory oo biology oo kale ama chemistry oo kale marka macalinka ku dhigo hadii aad u aragto waxaan practical ahaan si fiican baad u fahmaysaa marka taasina way fiican tahay inaan helno oo waan codsanahay حسين عبد العمر waxaan ahay ardaydii sanadkii 2012kii labtoonaadkayd imikana lagu magacaabo ardayda saddextoonaadka ama rajaynaysa in imtixaanka ugu yimaado kulley iskuulku sidii markii hore iyo hadda isbedel baa ka dhacay oo dhinaca exchange managementiga waxaa ama isbedel maamuleed baa ka dhacay kulley aad buu maasan yahay maamulaha dugsiga cusub Daawud Cabdi Ciise sababtaa iskuulka hadda aad buu isku bedelay waliba 90% dhinaca waxbarashadu aad buu isku bedeshay marka hadda waxaan filayaa inuu Daawud Cabdi Ciise uu yahay maamul aad u wanaagsan macalinta iyo waalidka iyo ardaydaba saddexdaba isku xiri kara iyo barayaashaba dhamaan marka hadii macalintu iyo maamulku wada shaqeeyaan wax badan baa iskuulka iska bedelay bismillah magacaygu waa Sirmisiyaad Cabdi ka socota fasalka 10B markii hore waxbarashada de horta khalkhal baa ku jiray balse laakiin maamulaha cusub inday si fiican bay waxbarashada nooga socotaa حتى والله هل حيصير إنه ما دافته كل يوم وأنا dugsiga ku soo kordhinay oo inta aan joognay qabanay dugsigu leydka caqabad weyn naga haysaa dugsigu computer lama isticmaali jirin laakiin waxa ka shaqaysanay iminka inay fasal kasta oo ICT u leh maadada inay practical ku qaataan fasal kasta wuxuu leeyahay 2 cisho hal maalin waxay ku qaadanayaan theory hal maalinna practical maalin kastana computerkii uu furan yahay 120 minoo computer noo yaala 120 computer noo shaqaynaya iyagoo ardayda kala duwan ka faa'iideysanaya waa Cali Cumar Qaalib waxaan dhigaa maadada xisaabta waxaan ka shaqeeyaa marka halkan dugsigan sanadkii 10aad baan marka joogaa tanyeeris baan marka ka shaqeeyaa waxa weeyaan kulley marka koobaad waxbarashada aad bay u socotaa sideedii caadi bay u socotaa magacaygu waxa weeyaan Mukhtaar Maxamed Axmed waxaan dhigaa dugsiga sare Baraha High School waxaan dhigaa maadada waxaan natural science waxaan dhigaa maadada biology-ga waxaan u dhigaa galaasyada kala ah 11aadka iyo 10aadka anigu waxaan ka shaqeeyaa dugsiga 4 sano ayaan ka shaqeeyaa alxamdulillah horta maanta dareenkayga ma soo koobi karo oo waa dugsigan wax ku bartay waxbarashada aan ka baxay abto 12aad haddana waxaan macalinka ahay 4 sano ayaan macalinka ahay sidoo kale baahi dhanka macallimiinta ayaa ka jirta dugsiga una baahan inay xukuumaddu keento macallimiin kale si ardaydu u helaan macallimiin ku filan iyo maadooyin dhammaystiran macallin yaraan oo waxoogaa macallinta qaar maadooyinka qaar ay ku yar yihiin ay jiraan maadooyinka qaar baa macallimiinta ku yar yihiin oo ay markaa ay noqotay double lagaga dhigay marka macallinku 25 ama galo ama 3 galo waxay ku caqabad bay ku tahay macallintuna kulley macallimiin ku filanna way joogtaa macallimiin marka maadooyin ay qaar ka dhiman yihiin way joogaan
macallimiinta nagu yarna in wixii maadooyinka nagu yartihiin in la noo soo biiriyo taasna waan u baahannahay maanta laboratory iyo library-ga ayaa dhibto caqabada ugu badan ahayd taana waxaan rajaynayaa insha Allah in laga gudbo hadii Ilaahay yiraahdo sanadka inkastoo macallimiin ay waqtigii barkii badantay haddana waxaan filayaa insha Allah in aan rajo wanaagsan ka heli doono dawladda deegaanka Soomaalida iyo heer federaalba laydhka oo aan badi u shaqayn jiray dugsiga ama maalmaha badi ka maqnaan jiray dugsiga oo ka mid ahaa caqabadaha sida weyn u haystay ardayda ayaa maamulkan cusub ee dugsiga oo hoggaanka u hayo maamulka muddadii ay joogeen waxa ay dugsiga ku soo kordhiyeen isla mar ahaantaana keeneen solar ku shaqaynaya cadceedda kaasoo hadda waqti walba u shaqeeya dugsiga kagana maarmeen laydhkii badi ka maqnaan jiray dugsiga ayna iska kaashadeen maamulka dugsiga iyo qaar ka mid ah waalidka ardaydu waxa kaloo aad caqabad nagu haysay xasuus dhowrka recording officerkii qofkii xafiiskii documentkii lagu qorayay ama lagu gurayay inuu bilaa laydh noqdo laydhkiina maalin maqnaanay maalin lagu jirayo waxaan soo kordhinay solar system oo qarash naga galay 20,000 oo bira annagoo si dadkayga macaamiisha iyo dadka waalidiinta la kaashana waxaan noo qabsamay 20,000 oo bir inaan bixino solar keeno qalabkii solar ku yaala maanta qolkii xogeyntu bilaa laydh ku shaqeynaya solarkaasaan la saacidaya habeen iyo maalin haddii loo baahdo maanta ugu baahnin xagga intan maamulku u baahno light laakiin light waxa u baahan ardaydii dugsigu baahiyo kala duwan oo badan buu leeyahay baahiyaha wixii aan qaban karnay waan ka qabanay office-ka oon arradirnay oo nuurad iyo stambar iyo telefoon ku xidhnay waxyaabaha waan qabanay oo dugsiga xogtiisa sidoo qurxinay waan qabanay horta muddo sanad kadib dugsiga waxa ka maqan library ayaa ka maqan iyo laboratory oo isku dhex yaalay lagu qaato maadooyinka sida biology-ga iyo chemistry-ga oo labkii ah marka library dugsiga waxyaabaha u baahan yahay kamid ah library-ga ayaa kamid ah iyo laboratory-ga ayaa kamid ah marka baahiyahaas aad ayaan ugu baahanahay badan buu dugsigu u baahan yahay waxaana ka mid ah goobtii akhriska ama library-gii baa dugsiga ka maqan hadda kahor waa tii ogeydeen qabti ku dhacay dugsigeena dhalinyarteennii dugsiga ka baxday lacag fiican way keeneen wixii ay qaban kareen way qabteen laakiin haddana waa qabyo inta dhiman markii la qiimeeyey 350 kun baa loo qiimeeyey lacagta maqan 400 kun waa la keenay way jinkada in mar la dhigo la nuuradayo la ranjiyeeyo lacagta wax ku qiyaaseen 350 kun macal shalfiskii qalabkii ma yaalo dad waxaa jira iskuulkeena ka baxay oo boorama iyo hargeysa noo keenay kuraas iyo misas wayna ku maasan yihiin laakiin waxaa naga maqan shalfiskii buugta la dhigi lahaa buugta lafteedii library-ga haddii noo dhamaystirnana baahidii waxbarashada oon ICT ka helno oon library-ga helno dugsigeena wuxuu noqonayaa dugsi jaamacad uu noqonayaa u dhamaystiran marka had iyo jeer tusaale la qaadanayo aw bare loo soo qaybiyo muxuu ahaa oo la ilaa bare lagu soo tusaale qaato tusaale ma ku biyaha xanuunkii jiray muxuu ahaa loo jiray COVID-19 ardayda waxa loo keenay in muxuu ahaa imtixaanka internet lagu soo lagu qaado lagu buuxin kulay meel tijaabada laga qaaday oo bare iyo magaalada xijigjigahay kaliya iskuulka hal caqabado kaliya ka jirta halka caqabado ah dhibaatadii ku timiday 2011kii oo ah library-ga ka gubtay taas mooyeen wax problem kale oo ka jira ma jiro kana hadda dhismihiisu meel fiican buu maraya oo alxamdulillah xogaa yar ba ka dhiman oo waxa dhisan qurba joogteeni iyo dadkii oo baro dhashay wax kale oo meel ugu yimid ma jiro markaas inta codsiga waxaan wadnaa inta ka dawlad ahaan ba dhiman inta kale way dhisan tahay marka waxaan rajaynaynaa inta dawladdu inay ku soo beerto
dugsiga iyo maamulka cusub ifraahintooda aad isku bedelay dugsigu haday ahaato nidaamka decorationada ofisada loo sharaxay iyo galaasyada iyo waxqabadka ardayda iyo tayintooda runtii horta maamulaha dugsiga cusub Daawud Cabdi Ciise runtii waa maamule ta urur ahaan garab taagan tay arday ahaan iyo waxqabadka dugsiga dadaal xooggan ka wada ugu dambayna maamulaha dugsiga ayaa dhammaanba ardadii sanadaha kala duwan ka baxay dugsiga waqtigana ku nool dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ugu baaqa inay ka soo qayb qaataan dhamaystirka maktabadda buugta ama library-ga ee dugsiga marka wax ka codsanaya dhalinyarta dugsiga ka baxday ha joogaan dunida daafeega ha joogaan dalka gudihiisa wax ka codsanana inay nagala shaqeeyaan ama noo buuxiyaan baahida library-ga waa keeni cidda gubtay waan garanaa waa xaasid aw baro jooga ilaa imkan aan la garanin meel ku raadambeeyo oo la magacaabay laakiin waxa baahin noo aad weyn ugu qabnaa inaan helno library sidoo kale waxa burburay laboratory qaybtii markaa qalfoofyadii acidity la isku daray biyihii iyo hydrogen plus oxygen wixii la isku daray dhani iyadna way baabaaday horta caqabadaha ugu weyn ee haysta waa taa library dugsiga waxyaabo u baahan yahay kamida library ayaa kamida iyo laboratory ayaa kamida marka baahiyaas aad ayaan ugu baahnahay anagu dugsiyahaan maamul ahaan balan baan qaadanaa dugsigu dhaqaalo leeyahay usoo xarooda dhaqaalaha dugsiga inaan wax ku qabanno waan ballan qaadanaa sanad kasta dugsiga 100 kun oo gaarintiya soo gala xilliyadii hore imika waxaan ogaanay inaan waxyaabo muuqdo oon dugsiga wax u taraya ayna ka muuqan annagu imika waxa aan soo qaadnay diima ku soo qaadnay waana bixinanaa laakiin waxaan noo qorshaysan inaan u keenno sanadkan dugsiga inaan gaari u soo iibino annagu inta maamulkayga joogno inaan gaari keenno gaarigaas soo qaadi doona cidda gabadha ama wiil xanuunsada lagu qaado suuqa lagu geeyo macallimiinta shaqada soo galaya lagu soo qaado markay sii baxayaan lagu qaado gaariga inaan sanadkan soo korino insha Allah waa qorshaha koobaad tani markii guud ahaanba isbeddelka ana qaaday deegaanka Soomaalida isla mar ahaantaana ay meesha ka baxday xukuumadii hore ee shacabka deegaanka Soomaalida caburiska iyo cadaadiska badan ku haysay ayaa hadaba qaar ka mid ah dhalinyarada degmadu iyagoo ka faa'iideysanaya isbeddelka guud ahaan ka ana qaaday deegaanka Soomaalida iyo isbeddelka dhawaan ka dhacay dugsigaba waxa ay aasaaseen urur samafal oo lagu magacaabo Ayaamaal kaas oo caawiya dadka danyarta ee ku nool degmada sidoo kale ardayda ka caawiya dhanka waxbarashada halka baarnaha qaarna uu ururka Ayaamaal uu qaar ka mid ah shacabka degmada kala qayb galo ololaha nadaafadda ee qaar ka mid ah shacabka degmada ay ka sameeyaan isla gudaha degmada dhanaan oo ka faa'iideysan isbeddelka dugsiga ka dhacay iyo dhammaan deegaanka aan oo ka faa'iideysana waxaas ku keenay ururka Ayaamaalna sameeyno ururkana waa asaasan saddex hadaaf oo kaliya saddexdaas waa inuu ka shaqeeyo bilicda degmada kor qaadida waxbarashada iyo caawimaadda danyarta dadka danyarta saddexdaas ma sameysanahay saddexdan ugu muhiimsan midba ugu muhiimsan taasi qaano haddii wadanku waxa ka dhisan yahay waa wax la yiraahdo aqoonta iyo dhalinyarada markaas waxaan xoog saarnaa inta ugu badan waxbarashada xoog saarnaa dalkeeni warsan baa ka yimid dawa iyo nolol baa la helay inuu tulligii ka baxay deqoowanba waan ogahay dalkeeni warsan baa ka yimid dawa iyo ururkan Ayaamaal ahaan horta waxa loo aasaasay waxyaabo badan sidii aayaha iyo mustaqbalka awlaadda soo koraysa ay u tayin lahaayeen ay wax ugu sheegi lahaayeen ururkani wuxuu ka wada wacyigelin badan haday noqoto dhiirigelin notification iyo haday noqoto riwaayado lagu matalayo isla notification-ka waxa qorshaha kale nagu jirta inaan sanadkan anagu dugsi ahaan ka fulino anagoo waalidka anagoo la kaashana macallimiinta inaan controlka dugsiga adkayno
CC camera ku xidhan dhammaan iskuulkiisa annagoo qalabkii kombiyuutarada haysana inaan 15 mid ilaa 16 mid oo kamarada ku xidhno library-ga office-ka fasalada gudahooda iyo kombiyuutarada dabadooda ku xidhno si ay control-kaasi record u sameeyo habeenkii anoo kaya malahan barnaamijyo badan iskuulka ka wadna ayaan ugu darnay dhiirigelin waxbarasho iyo motivation iyo waxa la dhaalo entertainment-ga xayisiinta ama sida waxbarashada qaabka ninka qofka wax baranaya ama shakhsiga wax baranaya sida loogu sii xayisiyo waxbarashada si uu helo moral iyo si wax u barto anoo ka faysanay qaybahaas oo dhan waxa soo kala ka shaqeynaa nadaafadda bulshada oo toddobaadkii hal mar bulshada kala qayb qaadano soo kale waxa ka shaqeynaa inaan caawimaad dadka danyarta sababta fareenimo ma sinade diintuna sheegayso fareenimo ma sina oo waxa jira dadka danyar oo waxba awoodin inay wax bartaan aan awoodin inay wax qabsadaan aan awoodin haddii doon qaarkood ay disability yihiin ama ay la xadlaayeen kuwaasna anagu qorshe ku darsanaa waan caawinaa دويسنا مرada bulshada nasiisayeen noo nimceen rabbo nimcadaada iyo naxariista kama marane xukuumad noo nuglato دويسنا مرada bulshada nasiisayeen noo nimceen waxaan ka codsanaynaa markaas in laboratory-ga iyo laboratory-ga cid kasta oo markaa dareenkayga qusayso in ay naga gargaaraan oo markaas dhisitaankiisa kuraastii wax walba in la naga garab qabto ayaan aad ugu baahannahay aad iyo aad baan ugu baahannahay taa way ardayga marka aad waa saxan tahay ardaygu saxnaan kara laakiin se adiga oo hogaamiye ah haddaad saxnaan weyd dee ardaygu kugu dayan maanta matalan daawud hormuudka dugsiga sare u noqday way dugsiga hoose waxyaabaha uu ka sameeyey markii la arkay baa la yidhi dugsiga sare ay dhibaatadu taagantahay dugsiga sare halkiisa isbedelka uu nala garab taagan yahay ka aayamaad ahaan anu ma ihi arday imika laakiin se dhigta dugsiga waxaan arday jaamacadda dhigta sanadkii labaad waxaan ururka ayamaan lagu asaasanay si aan bulshadeennii hiliyo holba u garab taagnaan lahayn hadday dhaqaale noqoto iyo hadday muruqyo maalba noqoto labada dhan waxyaabahan haysanana waxaa ka mid ah computer science laba galaas oo computer laba ayaan haysanaa marka alxamdulillah marka nimcadana waan ku shukriyeynaa sidoo kale faa'iidooyinka aan dugsiga ku haysano waxaa ka mid ah balaasmaha oo ah joogto taasoo iyadna marmar waxa soo noqota carqabadaha leydka ayaa soo noqota taasna alxamdulillah waa ka fiican tahay oo aad buu leeyahay fiican yahay balaasmahana si fiican ayaa loo qaataa taagannahay dhalinyarada inta aan joogno iyo inta aan ka maqannahayna dhiirigelin baan ku wadana inta la joognana face to face baan wax ugu sii doonaa insha Allah isbedelka weyn dugsiga haddaan ku noqdo horta lama koobi karo adoo yimaadun baa isha macallin baa leeyahay adoo yimaadun baa horta ka dhargi lahayd waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa Daawud Cabdi Ciise mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan mahadcelinayaa maamulka cusub oo waxaan lahayn markaas maxaan ku raahdaa parent association of the school ما لهين ولا سميه مكا جودي مركز ديسبلينكي ولا سميه يجوا مركا حتى صور بالهم موجي أو أنت جودي لصوري برا لقصور جي وإيش غيان أوفيشال وإيش غيان الحمد لله معاملة تكسيان عادي يقوم هاي سوق بدلي قد شعور كي مركا برشة سوق بدلي عاد بنقوم هالنقية daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan oo intaas ayaan ku soo gabagabeynayna kula soo afmeynayna barnaamijkii gaarka ah diiradda ku saaraynay habsami u socodka nidaamka waxbarashada ee dugsiga sare ee degmada Howbare iyo sidoo kale qaar ka mid ah baahiyaha ka jira dhanka waxbarashada ee dugsiga isla mar ahaantaana uu muuqaalka dugsiga nala soo wadaagay cameraman ama soo muuqaal Dube Xuseen barnaamijka dhanka diyaarinta su'aalaha habeenta muuqaalka soo saarista
iyo waliba soo jeedintuna waa anigoo Cabdifatax Cabdullaahi Ibraahim Cabdifatax Soomaaliya barnaamij intaan ku kulmi doono daawadayaal waa aniga iyo dhammaanteen intay kala qayb qaadato dhammaantiin idinku dhaafay idinka tagaya saas iyo nabadgelyo noolo kulantay waliba fiyaana idibka nabadana adkaysa dhammaanteen taahano bulshada dhaxalaan u reebno idibka nabadana adkaysa dhammaanteen taahano bulshada dhaxalaan u reebno